munaasabadan oo ka dhacday wakaalada biyaha berbera ayaa waxa ka qayb galay madax isugu jirta madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, barasabka gobolka Saaxil, maayirka degmada Berbera, maarayaadka kada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala yimid gobolada Maroodijeex, Togdheer iyo Awdal. ugu horeyntii waxa ka hadlay kana warbixiyay dhismahan iyo dayactirka lagu sameeyay wakaalada biyaha Berbera, maarayaad wakaalada biyaha Berbera Saleebaan Cabdiraxmaan Looliya iyo maarayaadka ku-xigeenka wakaalada biyaha Berbera Bokor Bilay Saxaaq. runtii dhismahan maanta aynu ku jirnaa ama aynu taaganahay hortiisa aynu fadhinaa waa laba dabaq wuxuu ka kooban yahay 4 xafiis iyo 2 hool oo mid uu yahay shirarka midna uu yahay hoolka shaqaalaha sidaynu wada aragno farxadan aynu maanta taaganahay halkan waxyaabaanu ka hagaajinay jiro gudbay hayd meesha waan soo buuxinay dayrkan iyo 2 qol waanu dhisnay qasnadan iyo xafiisyada kale dhamaantood iyagana waanu qalabaynay waxaanu iibinay gaadiid waxaanu kordhinay mushaharka shaqaalaha 2 jeer waxaanoo diyaarsan markii saddexaad imaka inaanu insha Allahu tacaala aanu kordhino runtii muddada kooban ee uu joogay maamulka wakaalada biyaha Maariya Saleebaan iyo shaqaale weynaha wakaalada biyaha waxa marxaati ka ah waxqabadka ballaaran ee uu ka qabtay dadweynaha reer Berbera iyo maamulka iyo degmadaba marxaati ay ka yihiin. waxa kaloo halka ka hadlay mas'uuliyiin ka kala yimid gobolada Togdheer iyo Maroodijeex iyo Awdal iyagoo dhammaantood mas'uuliyiintaasi ugu hambalyeeyay waxqabadka muuqda ay ku soo kordhiyeen maamulka wakaalada biyaha Berbera degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciid, maarayaadka kada Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi Rooda Axmed Yaasiin oo ka mid ah gudida xuquuqinsaanka Soomaaliland, maarayaadka ku-xigeenka amaashidaalka Berbera iyo barasabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa ka marakacay waxqabadka muuqda maamulka wakaalada biyaha Berbera ay soo kordhiyeen. waxqabad marka la yiraahdo waxqabad waxa la qabto waxa ugu qiimo badan waxa bini'aadamku uu dareemo. Saleebaan wuxuu qabtay waxa bini'aadamka halkan ku nool ugu baahi badan yahay oo ah biyo nabadgelyadu baa ka horeysa. waxaan leeyahay Saleebaan xilkaagii si fiican baad u gudatay dadkii iga horeeyay dhamuu sheegay makhraati ayaanu ka nahay intii aad xilka haysay hawsha iyo xajmiga inta la eegad qabatay run ahaantii maantana alxamdulillah waa la arkaa waxa laga taagay iyo siday tahay iyo sida looga shaqeeyay iyo heerka la gaaray. marka maanta waxaan madaxweyne ku xigeen ku sheegaynaa horta gobolku maanta maalin uu ka wanaagsan yahay ma jiro. berigii hore siday meeshani ahaan jirtay waynu la wada soconnaa maantana sida ay tahay waynu arkaynaa guusha Ilaahay bayna siiyay. maarayaha biyaha ayaa dadaalay wakaalada biyaha ee Berbera oo hogaamiye u yahay ama maamul yahay mudane Saleebaan ama maarayaha wakaalada biyaha ee Berbera waxaan qirayaa oo halka ka qirayaa in waxa halka laga sheegayay indheheenu arkaan kadib markaanu kormeernay inay wada run yihiin waxay dadku halka ka sheegayaan. kulamo munaasabada ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maanta waa maalin runtii suntan oo taariikhda galaysa mudane madaxweyne ku xigeen inagoo isku duuban waxaan ka codsanayaa inaad ii ogolaato inaan hambalyeeyo Saleebaan oo ah hogaamiyaha wakaaladan iyo shaqaalihiisa tayada badan ee dadaalka muujiyay oo aynu ku majiiranno horumarka iyo tacabka iyo himilada iyo mustaqbalka ifaya ee ay u horseedeen bulshada gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera. guul iyo gobonimo Berbera u rajaynaya sidaa haddeed wuxuu wadaana fiisaad sheegaysaane garkaanu idin qaban. Berberi maanta waxay ka mid tahay magaalooyinka geeska Afrika tirsan ee maalinta dhow khudbadii madaxweynaha uu ka sheegay labada gole in dekadii la horumariyay in wadooyinkii la horumariyay in dhismihii la horumariyay in magaalooyinkii la horumariyay arintaas soo run maaha. waxaan rabaa halkan mar labaad mar saddexaad inaan uga mahadnaqo maarayaha wakaalada biyaha iyo shaqaalaha maarayaha waxa kale oo leenahay maarayaha waa inaad guursataana taalafteedu waxqabadkay soo galaysaa eeg waxqabadkay soo galaysaayo mas'uuliyad bay noqonaysaa mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinku mahadnaqayaa. marka hore aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inanka Saleebaan runtii isbedel ka muujiyay halkani waana mas'uuliyadda qofka bini'aadanka Soomaalida hore u mahmaadaa reernin buu dhintaa ama noolaada waxa kale oo dhan ee lagu daba darayaa waa ixtiraam laakiin qofka bini'aadanka hogaamiyaha ama wax nooleeya ama wax baabiya shaqaale si kasta hadduu wanaagsan yahay una hogaamiye fiican helin waxba ma qaban karo. bini'aadanka qof hogaamiya oo daacada oo committed oo raba inuu wax bedelo inuu wixii loo dhiibay iyo mas'uuliyadda la saaray inuu wax ka bedelo raba iyo wax toosiya hadduu se isagu diyaar ahayn shaqaalaha maartay wax hagaajin maayo. marka waxa ka muuqata bini'aadanka waa inta aynu u baahannahay waa inta qaranku u baahan yahay waa inta ay dadkeenu mas'uuliyadda waxa ay badaneen tabayno maanta waa mas'uuliyad daro qofku markuu xil isa saaro xilka qiimo leh hadduu nin walba meesha ka shaqeeyo xilka qiimo leh marka waxa muuqata xilqaan iyo wixii loo dhiibay
oo si wanaagsan uga shaqeeyay. gabadha waxa munaasabadaas soo afmeeray xadhigana ka jira madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. markii munaasabadaasi soo dhamaatayna waxa shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan la siiyay qaybo kamid ah shaqaalaha wakaalada biyaha Berbera. Sadiq Arab Television caalamiga oo Cable TV magaalada Berbera.